Mas'uuliyiin ka socda xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa magaalada Beledweyne waxay ka daahfureen horyaalka kubadda cagta kooxaha Serie A ee gobolka Hiiraan kaasoo ay ka qayb galayaan 6 kooxood. Mucaashaqiin kubadda cagta iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabadda daahfurka taasi oo si heer sare ah u dhacday. Horyaalkan waxaa taabagelinaya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya kuwaasi oo sidoo kale agab isboorti ku wareejiyay 60 kooxood ee tartanka ka qayb galaya. Cabdicasiis Axmed Cadow gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Beledweyne iyo ururka kubadda cagta gobolka Hiiraan Cali Maxamed Cabdi Raaxooy ayaa faahfaahin ka bixiyay tartankan. lagu qaadi doona dhibco ilaahay ka sokow taas waxaan u suurtageliyay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo kan Hirshabeelle oo iskaashanayo ayagana aadaan uga mahad celinaya. waxaan rabaa in halkaan aan uga mahad celiyo dhammaan naadiyada magaalada Beledweyne kuwii nasiibku u helay inay ka mid noqdaan 6 kooxood iyo kuwii aan nasiibku u helin oo waqtigoodu ay sugi doonaan. sportsku waa isdhaxgal waxa la rabaa qofka in ay meesha iska qaadaan dhalinyaradu ay hiigsadaan inay heer u dheelaan ay qaranka Soomaaliyeed ay matalaan. meeshan waxaa ka soo baxday rag badan oo qaranka Soomaaliya laga yaqaano oo baha sports ahay waayahan daba gaabsi weyn ka jiray. waxaan rabaa inaan dhammaan hadda soo xiriirkina la joogo iyo dhammaan dadka jecel sportska reer Hirshabeelle ama reer Hiiraan inay ka qayb qaataan dhismaha garoonka Stadium Laqanyo. Labta waxaan joognaa garoonka weyn ee Laqanyo Stadium ee degmada Beledweyne waxaana ka furmi doona duulayra tartankii Serie A ee noo daafuri doona insha Allah duulayra xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. waxaan si gaar ugu mahad celinayaa Ilaahay subhanahu qadirka midda labaad waxaan mahad celinayaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee noo suurtageliyay maanta inuu tartanka noo qabsamo quruxda badan leh. waxaan tartan qayb gali doona duulayra 6 kooxood. waxaan si qaas oo gaar ahaan ugu mahad celinayaa nimanka xiriirka socdo nala joogo sidii xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Jabane iyo Abko nala joogo marka waxaan leeyahay waana mahadsan yihiin. Maxamed Cali Jabane oo ah kaaliyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ahna xogayaha horumarinta maamul goboleedyada iyo Xuseen Maxamuud Jimcaale oo ah la taliyaha horumarinta maamul goboleedyada iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa dhankooda munaasabadda daahfurka tartankaasi ka hadlay. waxayna isla qaateen in Hirshabeelle ay nasiib u yeelatay in magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar lagu qabto 2 horyaal harka maamul goboleedyada dalka ay nasiib u heleen min hal magaalo. waxayna ugu dambeyntii guul u rajeeyeen ciyaaryahanada gobolka Hiiraan. maxaa la yiraahdaa waxyaabaha facility xiriirka kubadda cagta Soomaaliya inuu bixin doono. waxaan kaloo meeshaan rabaa inaan kaga mahad celiyo ururka kubadda cagta Hirshabeelle iyagana qayb ka ah horumarinta maamul goboleedyada oo ayagana mataqaanaa suurtageliyay halkaan imaana ayagana. waxaan rabaa markaynan ku soo koobo warkayga maanta waxaa tartankan oo furmi doona 6 kooxood oo ka dhisan degmada Beledweyne oo taabagelaya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. waxaana fursad ay u heleen inay noqdaan maamul goboleedka kaliya ee helay in 2 meel lagu kala ciyaaro. waxaan rajeynayaa inay mataqaanaa ka soo bixi doonaan ciyaartooyda matasha qaranka Soomaaliya ama u ciyaarta heerarka kala duwan ee maanta laga ciyaaro. waxaan rajeynayaa in isbedel sportska xaqiisa ah ee ka soo muuqan doonto gobolkan Hiiraan qaasatan degmada Beledweyne. waxaan aad ugu faraxsanahay in magaalada Beledweyne garoonka Laqanyo Stadium ee gobolka Hiiraan aan ka furno tartanka horyaalka kubadda cagta Hirshabeelle iyo Jowhar. runtii magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxay soo marteen xadaarad dheer ay leeyihiin taariikh isboorti aad u fog gaaraan kubadda cagta. waxaana soo maray gobolka ku soo noqday dhibaatooyin fara badan oo colaadaha iyo fatahaadaha ay sababeen kaasoo dib u dhigay dhammaan horumarinta arrimaha bulshada ee gobolka. waxaan jeclahay oo aad aan u maqlay xalayna aad qurbo joogta ka dhageysanay in garoonka Laqanyo Stadium ay horumar balaalan iyo contribution ay ka geysanayaan si loogu bedelo artificial turf rooga macmalka ah. waxaan rabaa inaan aad uga faa'iideysto maxaa la dhahaa xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta wax kasta oo contribution oo suurtagal ka ah gobolka Hiiraan insha Allah taala kama xaqri doono. tartankan waxaa ka qayb galaya kooxo gaaraya ilaa 6 kooxood kuwaasi oo lagu kala magacaabo Dayax, Daarusalaam, Dalxiiska, Ciisadiin, Iftiin iyo Kobac. ciyaartii daafurka tartankani waxaa fooda isku daray kooxaha FC Dayax iyo Kobac iyagoo 4-0 guusha ku raacday kooxda Kobac. Saciid Madaale, Gool FM.